gudoomiye marka hore wax nooga warantaa bal hadda xisbiga wuxuu ka gudbaya xisbiyada kale horta waa xisbiga ugu daadaya saddex xisbi markaad eegto oo xisbiyada kale ee kulmiye iyo muddo dheer mehed soo jireen xisbigan himiladiisu waxa weeye in ummadda dareenkeeda lagu shaqeeyo waxay hiigsiga adeegsanaysaan oo ugu horeeyo horumarku hadday tahay xagga arrimaha bulshada hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay aqoonsiga himilada ummadda waxaan jecel lahay inaanu qorsho cad oo aan usoo bandhigi doono dadka aan ku hogaamin haddii lahay gudoomiye hadda inta badan xisbiyada waxaa lagu hantaa in haybta qabiilka gudoomiyaha una ay yeeshaan marka waa maxay saameynta gudoomiye ahaan ku leedihiin horta inagu de maraykan iyo ingiriis midna ma nihin mujtamaceenu waa mujtamac koraya markii masalan la xadeynayay axsaabta waa laga dhigi karaya 100 xisbi laakiin waxaa looga dhigaya waxa weeye in ummaddu 3 xisbi isugu timaado laakiin waxaa isleeyahay ummaddu halkaa way ka kortay axsaabta way ku kala biirtay deegaan kasta waa laga helayaa xisbi kasta marka ma odhan karno waa xisbi 3 xisbi midna waa reer ma odhan karno laakiin mujtamacu weli dee halkaad ka doonayso waxaa laga yaabaa inuu gaayo oo waxaa laga yaabaa un xisbiga iska daayay ninka meel ka madaxa in markaa la yidhaho maqaaxidii reer hebel ama maqaaxidii hebel baa laga yaabaa laakiin waxaa isleeyahay mujtamacu wuu korayaa axsaabtana inay jiritaankooda sharciga ah way aqbalayaan dadku awood intee leeg baa adigu gudoomiye ahaan ku leedahay xisbiga gudihiisa anuu xisbiga waxaa ka ahay shaksi hoggaan baan had ahay marka aniga berri mid kala iman doona marka hanaan dimuqraadi ku dhisan yahay xisbiga ma isleedahay shirweynaha xisbiga marka la qabto gudoomiyenimada iska bedelo murashax ugu koobno kulli hawlahaas intii hawlaha xisbiga u gaara bay yihiin halka qofkay ku xidhan tahay inuu sharaxo xilka ama uu ka tanaasulo marka laakiin waa furantay qof kastoo xisbiga ka mid ah inuu gudoomiyena noqdo madaxa kale xisbiga haddaba gudoomiye dad badan oo reer Soomaaliya iyagu ku garanayaan adiga Cabdiraxmaan waxaan laakiin qaar badan oo ku garanayn baa jira marka adigu shakhsi ahaan bal hadda isku sheeg adigoo qof aan ku garanayn isbaraya si fiican isku barta anigu waxaan ahay muwaadin reer Somaliland xuquuqda muwaadinka reer Somaliland yahay leh waxaan doorbiday inaan siyaasadda galo marka halkayguna wuxuu ka mid ahaa dad reer Somaliland oo isu tegay caqligoodana isu geeyey garaadkoodana isu geeyey waxay hanti haysteen isu geeyey si ay u sameeyaan urur siyaasadeed dabeedna ururka siyaasadeedna ku guuleystay inuu xisbi noqdo mujtamaca waxaan u sheegaynaa hanaakayga waxa weeye inaan ummadda ku hogaamino horumar haddii shaksiyan isku sii sheegtay daadaad waa imisa daad baa reer magaalku ka xanaanaaye waxaan isbitaal Hargeysa ku dhashay 29 Abriil 1955 cilmiga weyntii de cilmiga waxa lagu miisaamo aada sheegi doona haddaad ujeedo jaamacad ka baxday haa digrii koowaad ma qaadatay haa mid labaad ma qaadatay haa laakiin inta aad ku qiyaasayso cilmiga waa maxay nooca cilmiga aad baratay cilmiga anigu digrii koowaad ku qaadatayna waa maamul labaduba midna waa business administration midna MBA buu ahaa takhasusaad kale waan sameeyey oo ka mid yahay dhaqaalaha iyo siyaasadda inta gudoomiye magacaabad weligaa ma gashay haa madrasadna magacaaladii waasku midna carabaad ku sheegtay marna af Soomaali marka magacaalad waan galay oo dee quraanka halkaasaan ka bilaabay dabeedna kadibna iskuul baan wadankeena inta badan wadankeena dastuurkiisa wuxuu dhigayaa qof kastoo hogaamiye ka noqonaya waa noqdo qof muslima isla mar ahaantaasna haysta madhabka Shaafici adigu madhabkad ku dhaqanka anigu waxaan ahay nin Somaliland oo muslima shuruudihii looga baahnaa wada gudbay
ماذا كده لكن كل غلطة شافعية أحمدية أنا حيلتها قفوا بذات الدورة ودورك مدام إسلام كان طبعا لكن أنا أنت صرت على حاجة بهذا ووضن كينا واحد يونس عين السماء وطاء دي من الحلمين فهذا أهمها عاصمات وكذا هالكي يدونس عين الكبل وضان هالكي يدونس عين الجالسيسان تصالحان إمسا هو يا إمي كأمورها ولنتا إمسا سيدونس عين الكبلتان statisticsku waa wax isbedela tirakoobiyadu laakiin mabda ahaan xisbi ahaan waxaan wax qofku muwaadinkii xuquuq asaasi u leeyahay baa jira caafimaadku waa ka mid qof kasta in la gaarsiiyo inuu helo basic caafimaadka asaasiga ah ayuu weeye mabda aan ku shaqayno xisbigu adduunyada standard way leedahay waxaan jecelahay standardka ugu dhowin hadda oo waxaad arkaysaa cusbitalka demesteren hargeysa ee group hospitalka hargeysa waa cusbitalkii aan ku dhashay anigu 29 abriil 1950 waxaa laga yaabaa hargeysa berigaa dadka ku nool inuu 10 kun ahaa weli cusbitalka oo dowladdu leedahay weyn magaalada hargeysa ku yaala ma jiro marka waxaan qabnaa in caafimaadku uu hoos u daadego oo uu gaaro muwaadin kasta oo hooyada gaaro oo qofka kale muwaadinkaa gaaro iyadoo kalba markaa la eegaya dee hanaanka iyo hantida iyo mashaariic horumarineed iyo kaalmo dibadeed intaba qaab magaciyeed markaa u samaynaysa tusaale ahaan iminka waxaa jiray 6 isbitaallo keliya waddankeena marka isbitaalada guud soo qaado idinku imsaad ka dhigi doontaan ma degmo walba ka mid ah 16 degmo waddankeena wuxuu yeelan doonaa isbitaal guud oo la mid ah kaagaysa qorshuhu waxa weeye degmo kasta degmada maaha weliba tuulo kasta awooddeena ku xiran tahay iyo xoolaha aynu helno laakiin waxa weeye qof kasta basic aan ku sheegay marka ugu horeysa asaasku waxa weeye qof muwaadinkii inuu helo adeeg caafimaadka ama tuulo ha joogo ama xoolo dhaqato ha noqdo ama magaalo weyn ha joogo magaalooyinka in isbitaalada la waaweyneeyo oo masalan dee iminka hargeysa inta laakiin waxaa laga yaabaa inay ka junka weynta hadda berigaas marka kuwa jiran la hagaajiyo aasaaska ama caafimaadka asaasigaana ama hooyada la gaarsiiyo ama tuulada la gaarsiiyo mudda aan ku shaqayn doonaa wakaas marka sidee baa degmooyinka ugu kala samayn doontaan mise garanaysaa tirada gobollada Soomaaliland waqti xadirka inteed gobolladu inta sharciga ah ee hadda baarlamaanku ansixiyey jiritaanka lagu sareeyo marka doorasho dhacayso waa 6 gobol laakiin gobollo kale la bixiyo gabilii ugu horreysay way jiraan 13 ama 14 gobol ma xukuumadda hadda jirtaana gobollo cusub ay bixisa marka waxaa laga yaabaa 15 ama 16 gobol hadda aan marayno marka waxay la tahay daawi waxaan leenahay wasaarado waxaan samayn doonaa priorities waxaa laga yaabaa horumarku dalka uu kala badan yahay waxaa la yidhahdaa masalan dee galbeedku ku badan yahay horumarku ama dowladnimadu kusoo wanaagtay kusoo horreysay gobollada aan maamulkeenu gaarin baa jira waana xaqiiqo jirta in gobolku galbeedka soo xigo ama tacliinta u horumaray ama infrastructure ka horumaray marka equal distribution ayay wasaarad kasta siyaasadda waxa weeye in la simo waddanka la soo gaarsiiyo sidoo kale dadka horreeya in la soo gaarsiiyo marka kuwa aan horumarka iminka haysan baa loo badan doonaa xagga infrastructure si loo soo gaarsiiyo kuwa waa in la gaarsiiyo kuwa kalena horumarka laga joojin maayo laakiin waa in la soo gaarsiiya marka siyaasaddiin waxay ku aadan tahay gobollada bari waa in la soo gaarsiiyo gobollada galbeed kuma salaysan in la horumariyo caafimaadka masalada laakiin gobollada harayna kor loo soo qaado waa taas way haddana caafimaadka inta kaga baxna xagga ammaanka waxa ugu horeeya ee ammaanka saldhigga waa in muwaadiniinta waddanka oo dhan la wada aqoonsan adiga horta ma isdiiwaangelisay diiwaangelinta madaniga socota anigu diiwaangelinta amniga horta
waxay la tahay waa arrinta ugu muhiimsan ee dowladnimadu ay ku taagan tahay ama tiirka ugu weyn ammaankana dee xukuumadda markaa jirta ka mas-uula waxaanu leenahay ciidamo kala duwan boliis baynu leenahay sirdoon baynu leenahay ciidamada qarankaynu leenahay ciidamada asluubtaynu leenahay marka waxay la tahay amnigu mudnaanta koowaad ayuu mar walba qaran kasta u leeyahay qarankeena ku dhamaaha marka waxay la tahay ciidamadu ama tababarkooda hala xoojiyo ama tayadooda hala wanaajiyo ama qalabkooda hala wanaajiyo waxay la tahay waxaa awliyaadku u yahay annagana noo yahay qaran kastana u yahay amniga qaranka si loo wanaajiyo gudoomiyahanadu gudoomiyaha golaha gobolada gudoomiyaha xisbiga wadani maxaad u malaynaysaa inay waddankeena cadowga koowaad u tahay cadow waxaad ka dhigatay adiga ayay ku tahay sida caqliga cadowgeena koowaad waxaad leeyahay waxaad ka fikeraysa inaanu ahayn ma uu yahay shaqalaanta faqriga saboolnimada ayaas leeyahay cadowga koowaad somaliland maxaa ugu weyneed isleedahay khatar way ku tahay amniga somaliland intaasba khatar bay ku tahay waxa laga yaabaa ama waddan ka fikerayso ama qof kale ka fikerayso laakiin waxaad leeyahay markuu qofku dee nolosha uu ka quustu rajo beelo ama uu tahriibaya ama rabshad buu samaynaya ama suuqu istaagaya dadku boogaya marka waxaa laga yaabaa inuu aragtida aan qabo cadowgu waxa weeyaan waa fakriga iyo shaqala-aanta iyo baahida faraha badan in la yareeyo markaad awood doonayso kulli waa laga maarmaa inaad statkis hayso markaa dhalinyaradu aada buu tahriibta wadda soo hadalqaada qiyaastii 2 sannadood u dambeeyey imise dhalinyaro aad ku qiyaasi lahayd guddoomiyahan inay waddankeena ka tahriibeen waxaa laga yaabaa dee statistiska intaad hayso waa laga yaabaa laakiin tirakoobs waxaa laga yaabaa waxaad leeyahay sanadkii 2,000 ilaa 5,000 inta udhaxaysa waa laga yaabaa inta ka tahriibeyso waxyaabaha factoriska buuxiyo waxaa kamid a ku kalifa dhalinyaradu inay tahriibto shaqala-aantaad soo hadal qaaday marka dowladdan imika jirtaa maadaama guddoomiyaha golaha wakiilada tahay miisaaniyadda aad ansixiso kolley waa ogtahay tirooyinka imise shaqo ayay abuurtay dowladdan imika jirtaa imisaadse idinku doonaysaa inaad soo abuurtaan statkisku way kordhaa sanad kasta laba markaa kasi shaqaalaheenu markay dowladda u shaqeysaa waa dad kooban waxaa laga yaabaa 5 sano ka hor ama 6 sano ka hor inay 8 ka badnayn maanta waxaa laga yaabaa inay 2 laab noqdaan 16 ku noqdaan sectoriska qaybaha kordha laba ugu badan shaqaalaha loo qaato hadda Somaliland marka la eego qolo waa macallimiinta oo waxaynu ognahay iskuulladu inay aada u kordheen qolana waxaa laga yaabaa caafimaadka inay noqoto shaqada kale dowladda ku korra wax kooban waxaa laga yaabaa iminka anigu 10 sano barnaamijka joogay haddii shaqada ku kordhay la eego waxaa laga yaabaa in 60 ka badan ama 50 aan ka badan baa laga yaabaa mujtamacuna way kordhayeen intaas marka waxay la tahay waxay u baahan tahay in la sameeyo mashaariic oo dadka mashaariic horumarineed ayaa lagaga bixi karaa ninka shaqala-aanta sanadkii imisaad idinku kordhin doontaan haddaad awoodda qabsataan xilcisaan markaad barnaamijkiinina kulligood ogtahay imisa qof oo shaqaalaad sanadkii abuuri kartaan idinku xisbiyaha markaad qorshaysaan kolley waan soo bandhigi doonaa laakiin waxaan jecelahay inta hadda jirta 2 laabkeed iyo 4 laabkeedba in la gaarsiiyo waan taagtay waan soo bandhigi doonaa laakiin waxaan ku jiraa in la abuuro dadkii ka shaqeynayay marka hore markaasaa tirada la sheegi karaa saxa laakiin haddaan malaawaal ku sheego waxaa laga yaabaa kuma lagu qiyaasa somaa shaqaalaha dowladda base waxaanu gaarsiin karnaa dad rafli iska sheego hadda targetku intuu yahay mase hadduu 30,000 yahay kasoo qaad inaan 100,000 gaarsiino waa jecelahay gudoomiye waxa kaloo dhalinyaradu ay iyadana aada uga cawdaan inaan laga qeybgelin siyaasadda amaba inamo qurbaha ka yimi ay
shaqadii ka qaadaan idinku ka xisbi ahaan inkastoo adiga laftada qurbaha ka timaysa ma isleedahay wallaahi dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxday mudnaanta kuwaad ka siin doonaa kuwa qurbaha horta dee siyaasaddu laysma siiyo waa tartan qofka waa ina ka timaada isaga ama dibadda ha ka yimaada ama gudaha joogo waxa jooga dee kuwa badan dibadda joogo aan xiisanayn baa laga yaaba laakiin waxaan is leenahay masalan dee baarlamaanku wuxuu ku dadaalay in la fududeeyo siyaasadda dada lagu soo gelayo laakiin deegaanka berigii dhaweyto marka waxaan ku dhiirigelinaya dhalinyaradu inay xisaabta horta soo galaan siyaasadda markay soo galaan way fududaanaysaa dee inay iyagu markaas ay qeyb muhiima ay ka noqdaan waxaa sida cid ka hortaagenin ma jirto dhalinyarada marka anaguna waa dhiirigelinayna dhalinyarada rag iyo dumarba inay dee siyaasadda soo galaan haddaan kuu celiyo xagga amniga laba faktor baa la idhahdaa qaranka somaliland way khatar gelin karaan mid waxa weeyaan iska horimaad qabiil oo laba qabiil dhexmara noocu doona waa aadama siduu doona waa ku bilaabmay ka kalena waxa weeyaan baa la idhahdaa in laba kooxood oo laba mabaadi oo wax lidinta kala aaminsanay ka dhacaan abuurmaan adigu guddoomiye ahaan ma rumaysan tahay qabiilkan aynu ku dhaqanay dadkeeni mar walba ay ku dhaqmaan in la horumariyo oo la dastuur gareeyo dastuurka lagu qoro maya waxaa rabaa in baahida wax le asaaska waxaa laga yaabaa horta labada arrimaha sheegaysa midda somaliland kama jiro haddii reer isdilayana beryaha maynaan maqal reer hebelii reer hebel isdilaya ma jiraan qoladii isku haysato isdilaysana somaliland kama jirto marka labada arrimaha sheegaysaa midna hadda somaliland arri yaalla maaha ani waxaa is leeyahay waa laga bixi karaa arrintaa dee reernimada arrinta ugu weyne dadku ugu jiraa welina waa saboolnimada adduunka waxaa jira wax caymis la yidhaahdo ama insurance waxaan xasuustaa nin doctor ahoo beri aan hargeysa kaa wada gallay oo maraykan ka yimi ayay odayaalo yimaadeen waxay ku yahay magti carruurtaada lagaa rabaa inamadaada dabeedna wuxuu yihi caymiska ku jira maraykan aniga carruurtayda oo marka cidna anagu ma baahino magiyo waxa haddaan wax diliyo caymiskaa bixiya ama haddaan cid sheegno marka ayna tahay caymiska ugu jira qofku reernimada laga yaaba oo magti baa laga bixinayaa qaaraadki baa laga bixinayaa sideed ayana weydiinayaa markaa dad aanu ka baxno shaqo helo waynu ka bixi karnaa wadaas dad badan ba aan kula kastan waxay isweydiinayaan tola cabdiraxmaan ma bixiyaa qaaraanka tolkii ma bixiysaa anu dadku ba kamid ahayo si dadku noolyihiin kulleyna u noolahay anigu sideed ugu cadaalad fali doonta adigoo qaaraanka tolkaa bixiyo berita haddaad madaxweyne noqdo waxaa laga yaabaa imika dee waxaa laga yaabaa mid kaloo qaaraan doonaya inaan ka bixiyo adoo dad timaadkada qaaraan baa la haystaa inaan kaa bixiyaa laga yaabaa laftigaaga marka albaabkaygu qof walba wuu furan yahay cidna kama xidhna gobolna kama xidhna hebelna kama xidhna magaalana kama xidhna hadiya dembiyada dhexe waddankeena maxaa ugu badan baad isleedahay guddoomiyaha innaga dee somaliland waxay la tahay horta marka la eego dee wadamada ama aynu jaarka nahay ama dunida hadday tiro koobka dembiyadu ma badna somaliland marka dee la eego way dhici kartaa qof dilay way dhici kartaa qof waxaday waxay dhici kartaa dee kaysas madani dadku xidhiyin baa dhici kartaa xoolo la isku yeeshay waxaa dhici kartaa dad dee maga iyo wax isu haysta marka waxaa isleeyahay dee junuubtu somaliland ka dhacdaa wadan bay kamid tahay waxyaabaha dhacdooyinka ka dhaca somaliland ciidamada somaliland runtii dowladda kulliyo kordhisay 100% sida sheegtay idinku imisaad mushaarka u kordhin doontaan ciidanka qaranka haddaad awoodda qabsataan laba boqol waa samayn doonaa masalan waxaa laga yaabaa dee kiishkii beriiska ahay $20 ha beriga inuu maanta $100 yahay waxaa laga yaabaa actual incomeka qofku marka la eego ilaa waxba u kordhiyo waxaa isku dayi doonaa in maciishada la kontrolo ascaarta
la koontaroolo si mushaarka la kordhiyo qofka wuxuu ugu taro oo qofka hadduu ku kordho kiiskii bariiskaana 3 laab ku noqdo mushaaradaas 3 laab kordhiso macnaheedu way wax ugu kordhiyo marka waxaan jeeli doonaa in ascaartan oo ku tiri jirnaa gaar ahaan ciidamada oo asleeyahay iyo shaqaalaha waddankii mushaarooyinka aynu qaadanaa isbeddel laga qaataa aad u hooseeya marka 3 laab iyo 4 laab oo ku dhin doona laakiin manifestada ugu dambaysa ku soo saari doona inta ku dhigay gudoomiye wax kala ka warantaa kan qaybsiga dhinaca baarlamaanka golaha wakiilada waxyaaba hortaagan waxaa ka mid ah tartanka u dhexeeya gobolada iyo degmooyinka ee xagga tirada iyo saan qaybsiga qaabkiibada inta u heshii doonta aniga kuraasada Soomaaliland hadda baarlamaanku wax go'aan dastuurku gooyay gobolladii 8 kana wax ku salaysan yihiin gobollo kii ugu dambeeyay 2005 waxaa lagu saleeyay 6 degmo Ingiriisku looga tegay marka kuraasadii beriga haysatay baa lagu dhuftay 2.5 marka tiradii soo baxday ayaa gobol kasta u soo baxday markaas مثلا هرجيسيا ولا حصاب حسيتي أصير شيء صاحب الله والله يسوقها دائما تذكر هرجيسيا دي أرض بطيء برعاء اللي هي صبية تحب الله يقعد الدور ما له بداري ما حصل هاي سان غير سووا كيف يدون يدون ليه يو ده بحدة يو وحصل هاي سفارة ما نوقي بس لا يعني ودك صاريسان equal ratio وقفتي وعم بدنا نتخبط. قولها قلت ده. الساق قابكيبه ده موجود أنت وقت هذا كان لا تدرس عشان يسوون مشاريع. الدوم قوياش قلت لي قوياش برامج اسمه لك. خلاص. ضمن بدل ما صار مرة. هو له كم بذا. برامج كودنا ولا بقولي حاجة. وجدنا ورا ويلا بس وين تجني واساس اللي بدن وضمن وجدنا يبرمج كنا بالنسبة لك نحن عندنا دلما قلة الدستور كده هذا شيء والدستور كله بدرب وهذا الفريق بدرب لكن عم بهذا وجدنا يبغى وكيلنا ده حياة كده دبلهم نقطة الدستور كلهم نقطة marka umadu ay duway ayaa loo baahan yahay ma dawladda timaadana duway agto marka ka hor ciimadeed waxaan doonaynaa inaan ku salayno sida adduunka ugu dhaqmo guurtida iyo maraykanka ka soo qaado maraykanka taraga state kasta la leeyahay senate the congress kana wata qanatadiisa marka waxay la tahay inaynu kusoo dhawaano xaqiiqada jirta oo haddii doono kan la badiyo kaana la yareeyo laakiin waxay u baahan tahay in dib loo eego iyadoo kuraasadii aynan waayeyn imasire labada marka laisku daro waa 164 inoo kuraasadii waxba tuurin laakiin waxay u baahan tahay halkaas in dib loogu noqdo ويهتم حقي ما بالشدة قصة إنه أخذ منه نوسو كومي حاجة بيه يسقف وصومالات لسه وقت حاجة كم بيه نادي كهلا هي دكتور أنا حاسس إنه يا دويرت أنا هرجيسة حسودي دو سودي من قربا كيمي لبضيك ولي قسمت كمان عادي أنا جاي جنب قسمت كعادي marka aniga hargeysa joogay oo ilaa labadii ku joogay oo qasabad ka cabay maxaa loo leeyahay ninka kale ama tuugada joogay ama miyiga joogay marka waxa isleeyahay biyo nadiif ah inta cabtaa boqolkiiba dashan ma Soomaaliland ama toban ma laakiin statistics soo saaray tali UNICEF iyo saarada biyo soo saaray proportion ah tan baad kira Soomaaliland biyo ma nadiif ba biyo nadiif ah هذا شيء قلتونه. أنا جاي جنب أقول ده هرجيس إنديكين هاي. وما كأديك بينا اللي يفهمه شيء. ده أنا ما صحيح شيء ده مو يعني. لحظة كده كان الله يا بيها بويدو هالكي كذا صدق ما عرفش كذا صدق ما مشى. يا أخي صدق. ما بيور عصر ده لغة الكينية.
marka boqolkiiba 10 baa xeelad biyo anu waxaan leeyahay oo laga yaabaa dee UNICEF marka Hargeysa la qiyaasay waddanka dhan baa la qiyaasay anu waxaan leeyahay taa ka yarta waxay ognahay marka jiilaalku dhaco biyo dhaamis minu galaa marka xagee biyahaasi maxaa idinka qorshaysan in sicil waddanka jiray intaad soo kordhinaysan horta biyaha waxay baahan tahay dee qorshe dooxan Hargeysa berigii waddada la dhisayay berbera ninkii milaka la odhan jiray cagafyadii uu ka amaahday qoladii waddada dhisaysay dabeedna dooxan buu dhisay dooxan isagoo dee si cilmiya u eegin ayuu camud ku moosay dooxii Hargeysa Hargeysa doonyo wada iibsatay oo dowladdii jacaylka la odhan jiray marka waxay la tahay biyaha waynu xidhan karnaa biyaha dooxa mara haddaynu isu tagno marka qorshe la iman doonaa biyaha lagu xidhayo oo dooxyada lagu xidhayo imisaad xidhay doontaan dad rafkii intaad ugu tala gasheen anu waxaan leeyahay haddii Hargeysa tog dheer iyo Maroodijo haddii la xidho dadku beerayna samaysan doonaa marka labada dooxba qorshaha kuwaad ma qorshaha kuwaad tusaale marka ugu soo qaato doox kasta oo biyo maraan dee awooddeena ku xidhantay laakiin tusaale ma soo qaatay misale labadaas waana dawlad soo socotaa tiina dadku expectation bay sugayaan bal dooxyada anigu balse waxa weeye in dooxyada la xidho in riiga la badiyo bahorta nadiif waxay kaga tala galaan dadku u sheegay waxay naga tala galaan oo tusaale ahaan shanta sannadood haddii intaasaa noo qorshaysan inaanu xidhno 5 doox 6 doox 4 doox 2 mid horta waxa ugu dambeeya soo saari doono manifesta soo saarayna waa ku qori doonaa laakiin waxaan is leeyahay at least dooxyada waddanka ka jira haddii in westeed la xidho in la xidho oo taargetkaas lagu gaadho dee inta xukuumaddu jirto waa isku dayayna haddii la way xagga waxbarashada haddaynu tagno literacyga Somaliland waa imisa gudoomiyaha imisa dadka inay tahay literacyga inta waxbarto waxna aqoon Somaliland runtii dee waxbarashadu way korodhay Somaliland intay iskuulka tagtaa waayo waxaan tusaale soo qaadanayaa berigii waddanka 2000kii markaanu berbere maraynay dugsi sare ma jirin burca ma jirin 2004 muxuu ahaa 2004 baan burca tegey 18 May waxaa soo marayay meesha ardayda soo martay waxay ahaayeen ilaa 20 ku dhawaad sanadka ku dhaaf waqtigaa iskuullada mamay jirin ama dugsi sare ma jirin ama dugsi dhexe ma jirin marka adduunku waxay leeyihiin dee ama muxuu ahaa UNESCO waxay leeyihiin standard literacyga ay dunida dee ku cabiraan ama halbeeg marka waxaa Somaliland inta hadda tagtaa iskuullada marka la eego iyo populationkiina loo eego أنا واحد لا يقول كذا أفرت كم قطع أنا كاسس لكن سألت إن برشين سؤال واحد كان بقول بس كيف مثلا عرفتي ده يسوي الجداية كان تطبيع أفرت معنا إذا كنت تطبيع أفرت كم حد كسوق رينا بس الطاهرة ده وين هو من دونا واصلح بقى يا رابا وايو statistics وحيد هاي accuracy وهاكو حرنتها كم بعد اللي داخل كوصور ورسم وهاكو حرنتها ما كان واحد لا هاي قضينا السنة عندك كنت أنا صدق حدا سجلته وحصلنا هاي at least 20% ولا طارق على وحد جرا ودي كم 5 years أنا خصوصا عندنا على فكر كواد دقالها إما كان إنه هاي سماع عقد قوة وحويان قاد ما كبر يلي سنة قاد يسكتوا الجسام وحياتها هاي ومضوا وحبها هاي واحد لا يقفوا إنك ضدك قيلة وخلاص يعني بدي ما ضدك عشقة واحد
وحب هانتاي جوان دلت كير هذا ما حب هانتاي جوان كمان أورانس ولا تفليسه وهذا دراسة فصلنا دونا وحب هانتاي أنت بقى تشوفين سنة تجيده أودي تشوفين سنة العلم ولا لا هاي واحد حسوس طابري اختراع نوضة كمربع مرة عقالات تشوفين بارك ممكن يشوفين هذا مع وهذا صار على مدار دور عشان كده ولا سكسي جاي ما هو ولا ودي عارف ما وين تشوفين ممكن ما هي ما كان ودي هذا هو وسكت تشوفين وأنت كده ودي يعني أنت مرة صار والله أكا جيبوتي إلا يو دفو سوماليا أنت ولا حاسة أنت كده ما كنت تسوي كذا هذا كمان كيف مثل هذا كل مسؤول كذا ما كان ربنا طيب ده ودي لنا أي شفتوا وما كان ممنوع كرته حاجة دقالها دولة وحكا شركة عياني مكودين كينك حاولها شركة صح كم شركة لعجة طابعة هذا إن لعجة طابعة ده ليش ترى إنه طابعة شركة هم حتى اللي يدونها شركة يمكن أنت النمبر سامستين إنه كلا دول لعجتي مين قاعدها وإنه جبنا شركة صح ضمانة وقت حاجة كمبانك كمية لا محد يدون كلا يدونها الله قبلنا عد كستا أو ضد financial institution سيدون طبعا نقطة وين ضمانة الجزء والشعب وحكى ضمانة الجيران هذا حيبر الوصول من دولة لكن مبدئيا وين ضمانة أوكي هذا هو قدومي كلها وكيلة الصومالي لما تعيش العيدة حير ما شرعي كوسينة إن هذه يحضرنا كلام هذه بس هو بروبوس كلام كرتو ما دام هو حيل وقول ضغم أيوه بحد يلين وقت حاضر كم بقى ترى هذا ضمانات على كده لو كان حير كمسيرة بنجية الإسلام بقى كانوا مسيحيين بكتب على ضمانته تسألهم بقى كم سنة كده ويراشن مليون بقى وفي ضمانية لكن ولا سيادة ترى كل بقى أود العكس أو بقى كل شغالين بعدين waxay ugu dambeeyaan weydiin wax weyn adigu gudoomiye waxaad waqti xaadirka waxaad tahay gudoomiyaha golaha wakiilada waxaana doonaysaa in kursiga kale inaad ka yordurugto ma kula qurux badan inaad gudoomiyaha golaha wakiilada iskaga dhigto هذا ما حد تعرف هذا صحيح ما جعلش لما كلها تحيي مسكين ضد ما حقوق الغيرة كل سياسة كان الغيرة بس عادي يا مركا وهو يورط واحد كسريسينيس ولا شرعي شيء شرعي كرسي الدنيا حسب بالله مدحلات في الجو كلنا بالله مدحلات مركا دورشينا وعن بالوتشي عناك اللي جل هوا دورشو waxay ka soo dhaway waqtiga ka tagay gudoomiyaha golaha yaa sidee bedeshay xisbigaaga yaa ugu talagalay kullu qof baa si calaamad procedure bilay raasad bilay goluhu qof baa de kulli adigu ilaa xisbigu wuxuu doonay inuu golaha wakiiladana ka tago gudoomiye ka noqdo tood haysto marka kursiga banay golaha xawle inuu ka dhiganayo xisbigiina iyo soo talagashay xisbiga والله ترتميا ما كان ذلك يكسب محمد بن عيينة حسب كذا كان ربع أما حسب كذا